xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha, barasaabka gobolka Maroodijeex, gudoomiyaha komishanka tamarta, gudoomiyaha hay'adda aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka iyo masuuliyiin kale ayaa soo kormeeray deegaano kala duwan oo ka mid ah degmada Farawayne isla markaasna ay ka mid tahay wada Bariis, Dacarta, Abaarso, wada Makaahil, Bandarmaan iyo degmada Farawayne. deegaamadan hoos yimaada degmada Farawayne gobolka Maroodijeex waxaa si rasmi ah uga socota diiwaangelinta qaadashada kaarka codaynta oo ay bulshadu safaf dhaadheer ugu jiraan. deegaamadan oo ay ka socoto diiwaangelinta qaadashada codbixintu waxaa bulshadu safaf dhaadheer ugu jiraan sidii ay isku diiwaangelin lahaayeen, waxaana ay goob mas'uuliyiintan u soo mareen habka iyo hanaanka ay u socoto shaqadu. waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka, waxaanay sheegeen in goobaha iyo dadku ay kala badan yihiin loona baahan yahay in arrintaasi hoos u eegaan komishanka doorashooyinka qaranku. halkan goobta waxa weeyaan bandar amaan weey waa degmada Farawayne, waa tuulooyinka ka midka ah. waxa weey goob kaliya ayaa la keenay sanduuqa kaliya oo waliba xumaanaya internetkii kolba istaagayo dadkii kuma filla. berigii hore laba sanduuq baa tiyo abaarat yihiin oo dadku ay kala wada guureen. maanta oo la isku soo noqday oo abaarihii jirin oo dadkii uu ka farbadan yahay ayaa sanduuq kaliya la keenay diiwaangelinta. marka ilaa shalay wax ilaa xalay dib baa naga gaadhay sidaan dadka u rareynay. dadka halka jooga waa dadkii xalay u hoyday, waa dadka aanu seexinay halkan, dumarkii iyo carruurta halka dumarka ka ooyay yaabasa. marka waxa weeyaan dhibtaasi waxa keentay goobta kaliya ay tahay iyo server bahalkan xumaanaya kolba istaagaya. sida awgeed waxa loo baahan yahay in goobaha naloo soo kordhiyo. waxaanu komishanka faraynaa oo dawladda u sheegaynaa in naloo soo kordhiyo goobaha, in naloo soo kordhiyo muddada. intaba waan ka codsanaynaa. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Cabdiwali Sheekh Cabdilaahi Suufi iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Yurub Abiib ayaa dhinacooda halkaasi ka hadlay. nagu ku urgalayna qaabka u socoto diiwaangelintu runtii si fiican bay u socotay. waxa muuqata in ay dadku aad iyo aad u xiiseynayaan in isdiiwaangeliyaan, gaar ahaan goobahan xuduudda ku yaala. runtii aan la kulanay safaf aad u dhaadheer, dadka qaarkood ilaa xalay ay u hoydeen, ilaa imikana ay ku jiraan kuyuugi iyagoo muujinaya dulqaad iyo maaragtay adkaysi. kolay taas waa wax lagu farxo. dhinaca kale laftigooda waxa muuqata in inkastoo ay guddiga doorashooyinka heer qaran ay muujiyeen dadaal badan muujinayaan, haddana weli hadda waxa ka badan baahida ka badan waxa qalabka iyo shaqaalaha iyo hawsha socota. waxa mar walba ka badan inta qof ay doonaysa inay xaqooda dastuuriga ay galaan ama ay qaataan. marka runtii kolay fariimaha waanu gudbin doonaa. waxaan ka aragnay ujeedaduna waxa weyn aan u kurgalno dadkana lagu dhiirigeliyay inay isdiiwaangeliyaan. kolay waa xaq dastuuri oo waxa dastuurka ogol yahay, waa awoodda qofku wax ku bedeli karo. britoola dadka sharaxaya codkiisa qofku isagoo qof ku qanco siin doona. marka maanta waa maalintii codka la diyaarinayay, berrina waa codka lagu tartamay axsaabta iyo murashaxiinta kala duwan heer qaran iyo heer degmaba waa kay ku tartamayaan. marka runtii aad baan ugu faraxsanahay. kolay safarkan uu sii socon doonaa. waxa weeyaan waxaan halkan u nimiin aan u kuurgarno xaaladda dhabta ah ee ka jirta si aan wax uga ogaano xaaladuhu siday u socdaan iyo sida ay wax yihiin. run ahaantii mushkiladda amba dhibaatada ka jirta waxa weeyaan goobaha oo ay ku yaryar yihiin, ay ku yar tahay maxaa la yidhahdaaye diiwaangelinta laga diiwaangelinayo goobihii laba sanduuq ama saddex laan jiray uu mid quri yaallo, taasoo keentay culays dadkii lagu soo gurayay dhibaatadii ay kala kulmaan. marka la yiraahdo degmada Farawayne, wada Makaahil, Farawayne, Bandarmaan oo nimka taaganay iyo wada Bariis oo aan ku socono. run ahaantii waa dhulka Farawayne xuduudda dadkeeda waxa laga soo guraya. waad ogtiin Ilaahay dadkeena reserveeriyay degayn dadkeenu waa muwaadiniin iyaga laftigoodu wadan kale maxaa la yiraahdaa kirilka shanaad dadkeena iyo duuyadeeniba way joogaan. marka nimka Bandarmaan taaganay Degmada oo halkan ka saaranay waxa weeyaan halkan iska diiwaangelinayaan way imanayaan dadku. sida ay saaxiibtinimadii walaalnimadu ku jirtaan waa caynka oo labada wadamo isku gudbaan markay xaaladdan oo kala jirto. dadku meelna way u dhasheen, meelna way kala degan yihiin. marka waxa weeyaan insha Allah waxaan ku dadaali doonaa anaga xukuumad ahaan oo komishankan gaarsiin doonaa. meeshan hawshan ka socota waa technically commission weeyaan. marka komishanka waxaanu gaarsiin doonaa imikana aanu gaarsiinay soo socdaan ay tuuladan nagu xigtay soo socdaan hadeer. marka caqabadaha waa laga gudbi doonaa, wax kasta oo yimaadaba waa laga gudbaa. wixii technically iyaga farsamayn doona, laakiin waxaan ku dadaalanaa inaynu insha Allah qaadano sidoo barasaabku idin sheegay. qofkii hore isku diiwaangeliyo kaarkaaga horun baa ka gubanaya isdiiwaangelin.
waa la keenayaa kaadhadhkii berigii hore gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh Maxamed iyo gudoomiyaha komishanka tamarta Soomaaliland Axmed Faarax Cadare ayaa si wada jira bulshada deegaankaasi ugu booriyay qaadashada kaarka codbixinta waa fursad muwaadinku uu xaq u leeyahay waxa kale loo baahan yahay in dadka iyagana ku wacyigelisaan in dadkii hore isu diiwaan geliyay aanay mar labaad gelin taasina waxa weeyaan waxa laga yaabaa meelahan magaalooyinka fog ee xadka iyo meelaha la midka in internetku daciif yahay oo hadda aanu qabanaynin qofka mar hore diiwaangelinta galay laakiin hadhow serverka markuu ku dhaco labadaba uu masaxaya marka waxa loo baahan yahay dadku intay aanay gelin inay ku wacyigelisaan in aanay dadkii markii hore galay diiwaangelinta aanay gelin kuwii kaarka markii hore aan qaadanin way helayaan kaarkoodii waa loo keenayaa kuwii uu ka gubtay way isdiiwaan gelinayaan dadkii qaan gaadhay muddada iyo dadkii dalka ka maqnaa ama kuwii aan jaanis u helin isdiiwaan geliyaan intaasaa gelaysa marka waxaanu leenahay isdiiwaangeliya samra waa arkaynaa runtii in culays fara badani uu deegaanadaas oo dhan dhammaantood inta xuduudda ah khaasatan in culays badani uu ka jiro oo dad fara badani runtii ay taagan yihiin oo u hoyanayaan marka waxaanu leenahay samra waana gaarsiinaynaa insha allahu komishanka iyo ciddii hawshan runtii ku shaqa leh in dadkaasi loo fududeeyo oo sanaaduuqda wixii la kordhin karo iyo muddadoo la dheereeyaba waa dadka runtii xaqa u leh baanu isleenahay saas darteed waxaanu soo jeedinaynaa runtii idinkuna inaad samirtaan hawshaa wanaagsan iyo is-abaabulkaa fiican ee samayseen qof waloo muwaadini uu xaq u leeyahay inuu helo kaarkii codbixinta inuu helo cidduu doonayana inuu doorto uu xaq u leeyahay qof kastoo muwaadini waxaa runtii aad noogu farxada meelaha qaarkood in ay darban yihiin oo ay dadkii is abaabuleen oo ay xaddaafba yihiin nasiib darana aanay ku filaan waayeen agabkii loogu talagalay in dee lagu diiwaangeliyo halkaa waanu gaarsiinay si ay u sheegeen guddoomiyaha iyo wasiirkuba waanu gaarsiinay komishanka iyaga laftooduna way soo arkayaan haddii ilaahay yidhaahdo cabashooyinkiina iyo tabaalooyinkii o dhanba meelahan soo marro o dhanba waanu qaadnay waananu haynaa insha allahu tacaala waananu gaarsiin doonaa idinka waxaa idinka baahan yahay samirka waan ognahay laba cishaa idin harsan oo culayskeediya inay dad badan soo socdaan dad badan iminka ay noqdeen waxaa idinka baahan yahay dhabar adayga waa xaq baad u leedahay waa foot waxaad soo saaraysaa waa xildhibaankaagii deegaanka iyo baarlamaanka waxaa loo baahan yahay cabashada ayadoo jirta haddana dulqaadkeeda inaad ku adkaysataan insha allahu tacaala waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo sawirqaade Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland deegaanka Wada Bariis oo ka tirsan degmada Farawayne